soo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanayno mashaariicda horumarneed ee laga fuliyay degmada Awbarre gobolka Faafan ee labadan sano ee 2011 iyo 2012 kuwaasi oo isugu jira adeegyada bulshada isla markaana laga hirgeliyay tuulooyinka hoos yimaada degmadani. degmada isbedel ballaaran baa laga sameeyay labadii sano ugu dambeysay tiyo degmada sanadkii 2011 iyo 2011 iyo 2012 shaqooyin ballaaran oo bulshada nolosheeda wax lagaga bedelayo ama baahida bulshada qabalayada ay qabaan ka jawaabano ayaa waxaan sameeynay inaan maxaan ku raadaay anagoo ka duulana maxaan ku raadaa miisaaniyada degmada oo iska kooban kin dhinaca mashaariicda waxyaabaha aan qabanay labadii sano ugu dambeysay oo 8 sano ee dib u curashada kan ay joogtay aan laga qaban ayaa jira oo qabanay marka waxaan fulinay guud ahaan 13 mashruuc oo miisaaniyada degmada ka fulinay baa jira sanadkan 2012 2012 waxaan fulinay 6 mashruuc baan fulinay sanadka 2012 kana sidoo kale waxaan fulinay 7 mashruuc baan fulinay oo iyaguna waxaan ku raadaayay dhamaada oo gabagaboobay oo xariga meel aan ka jirnay jiraan marka guud ahaan sanadka 2012 2012 mashaariicda miisaaniyada degmada aan ku fulinay waa 13 mashruuc iskuulo ballaarin ayaan sameynay hal animal health post ayaan dhisnay sidoo kale waxaan dayactir ku sameynay 3 health post oo baaba'ay oo dundumay ayaan dayactir ku sameynay adeegina bilaabay adeegina fulinay shaqeynaya sidoo kale 2012 waxaan fulinay 7 mashruuc oo isugu jira hal iskuul oo ballaarin oo waxaan ku raadaay ballaarin ku sameynay 3 barkadood oo iyagana dhisnay baa jira meelihii ugu baahiyaha badnaa ee biyo la'aanta ka jirtay sidoo kale waxaan fulinay 3 human health post ama xarumaha caafimaadka dadka sidoo kale waxaan isla sanadkan dayactir ku sameynay maadaama in mashaariic hore sii jirtay in laga shaqeysiyo muhiim sidoo kale waxaan dayactir ku sameynay 3 health post oo health post caafimaadka adu waxaan u shaqeynaa population dan 2500 oo qof delivery haday tahay iyo haday EBI tahay haday fidinta caafimaadka ay tahay saasaan u wada shaqeynaa waxaan ka shaqeeyaa goobta shaqada Shabeelle ka shaqeeyaa health post Shabeelle waxaan ka tirtanayaa centerka health centerka Shabeelle bulshada si fiican soo dhaweynaa xiriir fiican baa naga dhaxeeya aad baan soo dhaweynaa waxaan ku qoranahay in kasta waan ka wada shaqeynaa waxaan ku qoranahay aad baan wada shaqeynaa waxaan ku qoran emergency-ga delivery-ga intaas oo dhan ayaan ka shaqeeyaa EBI-ga cudurka coronavirus aad baan uga wacyigelinaa waan ka wacyigelinaa aad baan uga taxadirnaa degmadani ayaa sidoo kale waxaa ka shaqeeya mashruuca horumarka jawaabinta saameynta qaxootiga kaasi oo ka hawlgala 9 tuulo oo ka mid ah goobaha ku teedsan xerooyinka qaxootiga kuwaasi oo ka fuliyo mashaariic isugu jira dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka xoolaha iyo dadka iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka sidoo kale degmada waxaa ka shaqeeya mashruuca horumarka jawaabista meelaha qaxootiyadu saameynta ku yeesheen mashruuc lagaga jawaabaya ayaa isna jira oo DRD la yiraahdo marka mashruucaasi 2012 shaqooyin aan qabanay oo mashaariic area-da qaxootiyada ay deegaanka ka fulinay maadaama mashruucu ka shaqeeyo 9 qabale oo ku teedsan labada xero qaxooti maadaama ka shaqeeyo waxa fulinay guud ahaan mashruucaasi labadaas sano iyadoo sanadkii 2010 dabayaaqadiisii markii aan nimidnay dhammaan mashaariicda mashruucaas ay taagnaayeen mashruucuna uu in yar u jirsaday inuu faa'iido garoobo laakiin ilaahay mahadi waxaan ku guuleysanay 2011 inaan fulino mashaariicdii loogu talagalay 2012 iyo 2010 mashaariicdii loogu talagalay ayaan dhameystirnay oo guud ahaan dhanaa 37 mashruuc ah dhanaa sidoo kale sanadkan 2012 10 mashruuc oo iyadna maxaan ku raadaay 9 ka qabale laga fulinay ayaa jirta marka guud ahaan mashaariicda Dr. Deebka ee aan fulinay sanadkan waxa weeye iyo sanadkii hore waa 47 mashruuc weeyaan 47 mashruuc tii miisaaniyadii degmada aan ka fulinay marka lagu daro 66 mashruuc baan ayaan guud ahaan degmada ka fulinay sidoo kale mashruucii BCDP ee degmada ka wareegay isna
6 barkadood oo sanadkii 2011 uu fuliyay baa jira iyo 2 iskuul oo maxaan ku radaa iyagana maxaan ku radaa ballaarin aan ku sameynay min 4 fasala marka guud ahaan mashaariicda degmada labadaas sano ee joognay waxaan qabanay waxda 8 sano ugu dambeysay aan dadka loo qaban hal iskuul oo 8 sano ee maxaan ku radaa dib u cusub ay joogeen degmada laga fuliyay oo weyn daraasaad kasta oo ku soo sameynay xog kasta oo soo raadinay waan weynay marka laga tagin daamka iyo guryaha maxaan ku radaa martida degmada laga dhisay mooyaan meel kale wax laga qabtay ma jirin haddana walow dadka haddana dakhliga iyo cashuurti laga qaaday oo dadka wax u baaqdayna jirin wax lagu qabto horumar laga joobanayna jirin laakiin labadaas inaan joogno 13 mashruuc oo miisaaniyada degmada laga fuliyay dakhliga aan soo saaranay dadka ka qaadnay waxaan ku fulin wax kale meel kale aan ka keenay ma waa dakhliga shacabka ka qaadnay ku fulin marka guud ahaan isbedel ballaaran oo dhinaca horumarka dhinaca nabadgelyada dhinaca wacyigelinta shacabka waxa kale oo yidna jirta mashruuc la yiraahdo Dr. Deep ama DR Deep la yiraahdo oo simaada xafiiska beeraha mashruucaas oo magaranaysa ujeedadiisu tahay maadaama oo laba xiro qaxooti ay ku yaalaan degmada Awbarre kaamka Awbarre kaamka Sheedheer marka waxa weeyaan labada qaxooti maadaama ay dhibaatooyin badan deegaanka u geysteen xilligii horena qaxooti hore u deganaa magaalada Awbarre mashruuc ay bangiga adduunka ama World Bank ay fangareeyaan oo magaranaysa in dadkii magaranaysa dhibaatada qaxootiga wax yeelaysay wax loogu qabtaa mashruucan oo shaqadiisu tahay shaqada ugu muhiimsan oo qabtay tahay 3 nooc taasi oo ah dhismayaasha xarumaha adeegga bixiya sida iskuulada xarumaha magaranaysa caafimaadka rugaha caafimaadka iyo rugaha caafimaadka xoolaha waxa kale oo iyadna kamid ah component la yiraahdo iyadna NRM-ka la yiraahdo ama ilaalinta kheyraadka dabiiciga la yiraahdo ku kale livelihood-ka la yiraahdo dadka shirkadaha yaryar in la iskugu xidho ama common interest group wax la yiraahdo la iskugu xidho dana gaara dadka wadaaga ay wax ka wada ganacsadaan oo lacag yar oo magaranaysa la siiyo grantiya marka mashruuca Dr. Deep oo muhiimadda ugu weynayd hadda kormeerka aan ku sameynay mashaariicdii 2 sano ugu dambeeyay aan sameynay haddaan ku horeeyo degmada Awbarre 9 qabale buu ka shaqeeyaa 9 ka qabale oo ah Awbarre centerkan Awbarre oo 5 iyo centerka Sheedheer oo iyagna 4 guud ahaan mashruucu 2 sano ee la soo dhaafay shaqooyinka ugu ballaaran buu fuliyay inkastoo mashruuca shaqadiisu ilaa 4 sano ay socoto 2 sano ugu dambeeyay buu shaqada ugu badan xagga magaranaysa xarumaha adeeg bixinta dhisay xarumihii la dhisay 2010 xilligaas intii dib uga soo dhaceen ayaa overlap ay ku soo noqdeen 2011 marka xilligii aan shaqada soo galay ugu horeysay xukuumadan cusub 2010 shaqadii la fulin lahayd 2011 shaqooyinkii la fulin lahaa ayaan hal mar wada fulinay kuwaas oo saad ku soo aragteen mashaariic aad u ballaaran oo magaranaysa aad u fara badana muddadan magaranaysa 2011 mashaariicda la fuliyay ilaa 37 mashruuc ayaa laga fuliyay 9 qabale xarumaha caafimaadka rugaha caafimaadka xoolaha rugaha caafimaadka dadka 5 iskuulada kala 7 ballaarin iskuul oo 2 qol ahayd iyadna hal mashruuc baa la fuliyay barkadaha iyagna 18 mashruuc ayaa la fuliyay xarumaha caafimaadka xoolaha iyagna 4 mashruuc ayaa la fuliyay degmadani Awbarre maadaama ay hodan ku tahay dhinaca wax soo saarka beeraha ayaa waxa ay maamulka degmadu iyagoo la kaashanay shacabka ay wadaan sidii horumarin loogu sameyn lahaa wax soo saarka beeraha iyadoo la isticmaalayo farsamooyinka casriga ah iyo abuurka xulka ah degmadu guud ahaan waxay ka kooban tahay xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato beeraley labadaba marka beeraleyda degmada Awbarre waxay ka mid tahay meelaha deegaanka ugu soo wax soo saarka badan haday qabadi noqoto haday galay noqoto marka wax soo saarkaasi in dadka aan ku dhiirigelino oo wax soo saartaan maadaama xanuunkani khatartiisa uu leeyahay waxa caalamka inooga imanaya laga yaabo inay istaagaan bulshada waan wacyi gelinay inay beeraha qotaan wacyi gelin balaaran baan siinay waxaan haysanaa dhur dihin oo wax soo saar ku filan maxaan ku raadaay degmada ka balaaran kana badan deegaankana maxaan ku raadaay wax badan ka tari kara in laga soo saari karo ayaa jira marka guud ahaan imika xafiiska waraabka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dooxooyin iyo xafiiska beeraha waxa la noo keenay 2 cagaf walow 2 cagaf ayna ku filan degmada ay balaaran tahay 64,000 oo hektar oo dhul la beerto oo diyaar ay jiraan marka hadana laakiin xafiiska aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xaq cagafyadina way shaqeynayaan shaqadoodina ay ku jiraan
inta aan sii dardargelinana waa waxa qorshaha noogu jira weeyaan already siirkii ay u baahnaayeen dadka waan soo gaarsiinay walow de miisaaniyadiisu ay ka kooban tahay dadkaas 64,000 hektar haddii siir loo kana la miisaaniyada degmada ma noqonayso marka saa daraadeed wixii aan awoodnay waan keenay shacabku laakiin way ku baraarugsan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay beeraha qotaan imikana way ku jiraan cagafyada habeenkii de intaas oo boqol cagaf ah ayaa degmada ku jirto shaqada ku jirto qabanaysa marka insha Allah taana inaan yadna natiijo fiican ka keeno sanadka ayaan rajaynaynaa oo gobolkeen faafan guud ahaan deegaankeena in wax soo saarka ama dadku baahida ay u baahan yihiin inaan degmadana ka soo saarno oo degmadana isku filnaansho gaarsiino degmada Awbar waxay ka kooban tahay 44 qabale dhul beereedka degmada Awbar ku yaala waxa uu leeyahay 64,000 hektar ayaa dhulka hadda la beertaa kulley xafiiska beeraha adeegyadu bixiyo waxa kamid ah kor u qaadida wax soo saarka dalagga iyadoo beeralayda farsamooyinka casriga ah loo gudbinayo wax soo saarka kor u qaadaya waxa kaloo kamid ah iyadna ilaalinta kheyraadka dabiiciga iyo kor u qaadida kheyraadka dabiiciga oo ma garanaysaa in carro celinta la sameeyo in la sameeyo dhiraynta in la sameeyo in ma garanaysaa dhirtii jirtay la ilaaliyo waxyaabaha muhiimadda ugu weyn xafiiska beeruhu uu asaasan yahay bay kamid tahay mashruucan saamaynta qaxootiga oo degmada ka fuliya adeegyo kala duwan ayaa waxaa ka mid a mashaariicda uu ka fuliya xarunta magaalada Awbarre suuqa hilibka oo hadda ka hor nadaafad ahaan iyo gooban ku habboonayn ku yaalay kaasi oo waqti xaadirkan laga fuliyay goobtii ugu habboonay isla markaana ay bulshadu ka faa'iideysanayaan sidoo kale market center ama maxaan ku leeyahay sariimada magaalada Awbarre ku taala iyadna maxaan ku leeyahay one business sanadkaas aan dhisnay meel hadda idna soo marnay baa jirto market center oo dumarka ma garanaysaa hilibka ka ganacsada loo dhisay oo marka hore geeda iyo jiingado ma garanaysaa midbada gooni labada xabbe heshay ay daash uga dhigato kol ku dumi jiray dhooqa ahayd ku jabi jireen waxyaabo badan oo dhibaato ay ka jirtay in ma garanaysaa nadaafadii hilibkii iyo ma garanaysaa meeshii iyadna si fiican loogu dhisay baa iyadna jirta marka guud ahaan 37 mashruuc ayaa sanadka 2011 projectiga ama mashruuca Dr. Deep oo xafiiska beeraha hoos yimaada uu fuliyay waxaanu ahayn iskaashato dayacan oo laamo hoostood ku soo noolayd oo jiingado hoostood ku soo noolayd oo jiingaduhu u kala go'naayeen oo dhexda biyuhu naga dhacayeen oo dhaqanci badan oo dumarku ay ku sulbadaan oo ku dhacaanba ay la kulmayeen ilaahay baan ku mahadinay iyo dawladdeeda waxa naloo dhisay guri dhagaxa oo sariimada waxa naloo si nidaam qurux badan oo kay anagu aanu codsanay nalaga aqbalay oo anagu khariirada jeexanay oo anagu xaashad ku qoranay oo qabalaha gudida saddexaad la kaashanay maxamed caqaba kamid yahay oo nala arkay bilaamkii aan dhisaynay ayaan dadka farsamada gacanta watay dhismahana u geysanay anagu tiiba anaga naloo qabtay waxa kale oo naloogu daray albaabada halayni dhiso guri iyo gooni halayni gudisaan la yiri anaga ka diidna waxaan yiri hawada aan sasiino adeega aan kala qaadanna bacda sarifka aan kala qaadanna baan isnidhi anaga ka codsanay inaan naloo dhexdeeda la gaabiyo labadii dumar ahaabana miis loo sameeyo albaab dhexda laga galo oo laakiin lahayn albaab la xidhan laakiin cagtu marto laga dhiga anaga codsanay iyagu se daaqad iyo albaabay noo wadeen anaga markaa diidnay oo nidhi hawadana aan kala helno adeega aan kala helno hilib daray si fiican baa ku leeyahay loogu dhisay wax dhaliila oo ka tirsanayno oo noo yaala halkaas oo tabanayna ma jirto inkastoo ay anaga naseegtay maalintii sidii xiriirtu u dhisan tahay inaan halkaan nooga bixiyo nidhaahno hawo oo miirka oo si halkaan uu marsan yahay in ka sareysiyo hawadu si ay noogu soo gasho oo kulay dad waaweyn mar hadii leeyahay la shaqaynayo dumarka madaxu ku yar garaaca badan hawadu iscelinayso intaana anaga codsanina maalintii aan oranay intaan noo qabta la intaan baan naseegan sidiisa kale waa laba albaabna loogu sameeyay albaab saddexaad oo dayro xagga dambe waa loogu sameeyay suuliga fooskiya tuushooda socda waa loo dhisay barxad halka har ku wadano oo cadka ku shiilano oo dambe oo dayro waa loo dhisay si qurux badan iyo nidaam qurux badan waa loogu dhisay waana ku qanacsanahay waana kaafiday mashruucani saamaynta qaxootiga ayaa sanadkani degmada ka fulinaya 10 mashruuc kuwaasi oo isugu jira adeegyada bulshada isla markaana waqti xaadirkan dhismahoodu uu gabagaba marayo waxa kaloo iyadna hadda socotood soo aragteen oo finishingkii ranjiyadii iyo waxyaabahaasi u dhiman yihiin mashaariicdii sanadkan 2012 oo dabayaaqo ku jira mashaariicdaas oo ka kooban 10 mashruuc oo kala ah xarun rugta caafimaadka dadka 3 ballaarin ama upgrading lagu sameeyay xarunta rugta caafimaadka ee magaranaysa sheedheer oo iyadna hal ah
ballayo aad soo aragteen oo iyagna ballayo aad u waaweyna oo 3 baa jiray barkad hal baa jirtay iskuul ma garanaysaa aw barre ku yaallo iyadna 6 class oo expansion rooms lagu daray baa iyadna jirtay feeder road baa jirtay iyadna wado isku xidha Hilingaab iyo Sheedheer oo marka hore dhibaato badan shacabka haysatay oo qabale dhan oo buur ay gudubtay buu ahaa oo ma garanaysaa dadkii umulaha dadkii kala adeegyada u baahnaa la gaari kar la'aabay hayd oo ma garanaysaa hadda bajaajtu ay orod ku tagayso saad aragteen marka guud ahaan sanadkana 10 mashruuc ayaa iyagna la fuliyay oo ma garanaysaa finishingkii u dhiman yahay oo kulli toolaha soo wada marnood aragteen kulli toole xafiiska beeraha degmada Awbarre shaqooyin badan buu sanadkan ma garanaysaa bulshada u fidiyo qabtay sanadkan horaantiisii waxaan xulanay 1200 hawsool oo inaan ma garanaysaa uga faa'iideynaan ugu talagalay ma garanaysaa farsamada casriga ee fidinta beeraha ilaa 890 hawsool ayaan ma garanaysaa siirkii ay u baahnaayeen siinay kuwaasoo kala ah 800 hawsool oo galay siinay oo midkiiba ha factor tijaaba la siiyay 90 hawsool oo iyagna vegetables ama khudaarta ka faa'iideysay u badan yihiin labada qabale iyo goobo ma garanaysaa imika la qabsaday inay roobka basasha ku beertaan oo wax soo saar fiican helay waxa kale oo iyagna noo xulan oo siirkii u yaala bakhaarka oo arki doontaan 310 hawsool oo ka faa'iideysan doona package-ka qamadiga oo qabalayada qamadiga laga beerto hadda rogaalkii beeraha la bilaabayo ma garanaysaa bisha hamle in ma garanaysaa la beero noo qorshaysan kulli toole shaqooyinkaasi faraha badan la laga qabtay mashaariicda kale ee degmadan laga fulinayo ayaa waxaa ka mid ah mashaariicda kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha iyadoo la isticmaalayo xidhxidhka dhulka si loo ilaaliyo deegaanka ayaa waxaa dib loogu soo celiyey dhul hadda ka hor ay bulshada ka fara bixiyeen waraarada iyo jeexjeexyada ay awood waayeen kuwaasi oo waqti xaadirkan ay bulshadu bilaabeen ka faa'iidaysiga dhinaca wax soo saarka beeraha in dhulka green laga dhigo dhirta lagu beero qorshahaasi waan fulinay sidoo ahaan u fulinay ka degmahan dhir badan oo sanadkii hore aan beernay ayaa jirta kulli dhirtaas guud ahaan way baxday dhirtaasi kulli inaad soo aragteen waan maleynaya meelaha xirxirka lagu sameeyo sidoo kale waan sameeynay taa ilaalinta deegaankana waxaan xoojinay wacyigelinta bulshada inay maxaan ku raadayay jarista dhirta ilaaliyaan beerista dhirtana la badiyo marka dhirtiina waan beernay wacyigelintii bulshadana waan siinay inayna dhirta jarin taana shaqo aad u ballaaran baan ka qabanay xafiiska beeraha ee degmaduna shaqo aad u ballaaran taa ka qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa dhirta aan beernay sanadkii hore dhil aad u ballaaran baa magaalooyinka waaweyn qabaleeyada adeegyada meelaha adeegyada bulshada ku yaalaan oo dhan dhirtii waan ka beernay isbedel ballaaran green bayna noqotay kulley taa inaan sii xoojino nursery oo baabaaday mar dib u soo noolaysiinay oo de baabaaday 8 sano ee meesha waxaan ku raadayay dib u cusub joogtay tii dib baan u soo celinay marka adeegyo way fulinaysaa sanad walba intaas kuna dhir ayay soo saartaa waxa iyadoo kala jirta nursery yadna degma ahaan 40 kun oo geed aan ku diyaarinay qaybo kamid ah imika aan beerno wali beernay ilaa 8 kun oo geed ayaan ma garanaysaa magaalooyinka la faciisa iyo Awbarre iyo u qaybinay waxa kale oo iyadna ku beernay xarumaha xidhxidhka lagu sameeyay waxa jirta iyadna degmada Awbarre 9 qabalay mashruuca Dr. Deep uu ka shaqeeyo 3 qabalay oo kamid ah shaqooyin badan oo xagga xidhxidhka ayaa laga qabto ka socda waxa weeyaan 3 qabalay marka la yiraahdo ilaa 600 oo hektar dhul ah ayaa ma garanaysaa structure-rada kala duwan ee badbaadinta carrada haday soil ban tahay haday tahay hillside trace tahay haday check dam tahay haday herringbone tahay ama brobasi waxyaabaha la yiraahdo laga wixii waxa kale oo iyadna soo aragteen goobahaasi structure-rada laga dhisay in ma garanaysaa geedo lagu beeray oo xilli roobaadkii xilligii loo baahnaa inta lala gaaray geedihii ay soo baxeen kuwaas oo manaafacaad carrada iyo ma garanaysaa xoolahaba u leh baa iyadna jirta wax qabadka Dr. Deep oo noo qabtay ma ee faa'iidada alle maanta ee aan de kulli wax tar weyn anagu aan u dareenay in wax isbedel weyn iyo aan aad wax noogu qabtay inay faa'iido badan aan ka helay taasoo ah iyo markii hore halkii aan maraynay aan taagnay intaan noo iman mashruuca Dr. Deep iyo wax qabadada badan ee noo qabtay waxa weeyaan laagihii boorihii waxyaalihii waxa weeyaan xaaluf oo beeri xitaa laagihii de lanaga xidhay dhulkii xidhxidhkii yareeraa biyaa la hakiyay waxay hakiyeen jagcii beeraha naga galayay ee dabadeed dhulkii aan qodanay marafacaadka ah aasayay ama de laagaha ka dhigay biyihii markii la hakiyay iyagoo nasila ayay beerti galayaan oo tagayaan midda kale dhirtii meesha xaalufku ku dhacay de wax walba ee baabaaday
way kortay oo imika de geedkii iyo wixii waxa soo noqday nabaadkii iyo wax walba uu soo noqday taasoo maanta aan faa'iido weyn ku hayno oo aan u arkayno inay de waxqabad fiican oo muuqda noo tahay annaga sidaa laajigeed dee kulley waxaan rajaynaynaa in wax ka badan lanoo sii qabto oo saayidahooda intaa kasii badanna waan rajaynaynaa in mashruucyada de doctor dhiib iyo wixii hay-adaha kale wixii lamida ay noo qabtaan lacagaha ka soo jeexmay golaha oo dhagax iyo quruurux badan intay soo dilaaciyaan beertii ka hoosaysay ay gelinayeen oo awoodaan iskaga difaacno oon jagaca ay keeneen ee buurta gosha ka soo rogmaday aan weynahan iskaga difaacno awoodaan dee macnaha shacabka iskaga difaacaan oo dhulkii aan manaafacaadsanana uu jagacii galay geedkii oo markii dee dhulkii qaxooti soo degay la xaalufiyey oo nabaad guur kolkuu dhulkii noqday dee ay biyihii waxyeelooyin badan keeneen markii kolley xadhxidhkaa iyo arrimaha waxqabadkaa la keenay wixii oo dhan isbeddel baa ku yimid hakad buu sameeyey biyihii dhirtii baa soo noqotay nabaadkii baa soo noqday beerihii manaafacaadsanana jeexmayey way isbeddel weyn baa ku dhaco meeshii saa wax looga qabtoo kale meeshaan la gaadhin maahe dee wax isbeddel muuqdaa meeshii kay eega noo muuqda dhir macnaha hadde taa hay-adda ee de shacabku ka shaqaynayo iyo haa jirta ee shacabku ee kolka dhulkii la jeexjeexii la xidhxidhay aan dee ku beernay ee dee hay-addu dadka ay hawlgelisay waxaan ku mahadnaqnay in lanoo sameeyey maxay dee iskool dhakhtar xidhxidhka beeraha baraagaha sidooda waxyaalo badan baa mashruucaasi dhakhtar dhiib noo sameeyey annaga waana ku mahadnaqaynaa waxa weeyaan faa'iidooyin badan bay noo qabteen faa'iidooyinkaasina waan ku teegarsannaho waan ku mahadnaqaynaa dhinaca xidhka beeraha waxa weeyaan wixii deel buur ah waa lanoo xidhay wixii bannaana waa lanoo xidhay wixii xagga beeraha ah ee laagaha intaasaan doonina in lanoogu daro oo lanooga faa'iideeyo oo dee looga beeraha oo kale biyaha lanoogu qabto dhulka daleenta ah laagaho kale dhulka qawlaanka ah dee lanoo xidho lanooga dhigo maxay ahayde ama jildhaab lanoogu xidho ama gabyad lanoogu xidho ayaanu rabnaa markaasi intaasina in lanoogu daran doonayna diyaar baan u nahay anaguna mashaariicda ka faa'iidaysano oon maxay ahayde horumar ku gaadhno ayaan diyaar u nahay anagu halkii aan ka soo bilownay waxay markii u horreysay iskoolkaasi geed baa lanoogu dhigi jiray carruurta geedkaa markii lanoogu dhigi jirayna haddana waxa anagoo geedkaa lanoogu dhigaya lanoo yimiday waxaan annaga ardaydayadaa geedkaasaa lanoogu dhigaa waxaan qabalay taageer baanu nahay qabalay wax dhisan karaya ma yihiin waxaan jecel lahay wax lanoo qabto way hay-adaha dunweyne wax noo qabtaan baa jecel lahan waxa lanoo dhisay waxa nagu yidhi jiingad inagu dadaal keeno oo jiingad dhistaan nagu yidhi sarab baa la soo gurtay qabalay baa sarab soo gurtay sarabkii baa la dhisay jiingad baa la dul dhigtay laba galaastii oo halkaa loogu dhigo ayaa haddana lanoo dhisay laba maqsin saddexdaa galaas baa lanoo dhisay saddexdaa galaas baa lanoogu dhigi jiray sidii lanoogu dhigi jiray haddana waa ta imka lanoogu iskoolka kale da lanoogu biirshay dhakhtarka lanoogu biirshay bareegaha lanoogu biirshay xidhxidhkii baa lanoogu biirshay horta faa'iidooyinkaa weyn baan gaadhnay annagu soo waxaad garatay maaha iminkana ha sii doonaynaa in faa'iido kasii badan ha sii helo waxaa kaloo jirta iyadna project iyadna cusub oo tijaabaha oo spread weyn wax la yidhaahdo oo xidh ma garanaysaa dhagax iyo shamiid sibir lagu dhisayo oo 4 laagood oo waaweyn oo degmada beeraleydii ugu batashaalka sanayd qabalay qabrino noo kala 3 laagood oo waaweyn baa la xidhay oo istaagay oo hadda ma garanaysaa ilaa 500 oo hektar dhul ahaa oo dadkii ay ka barakaceen wax ku beeranayay hadda ay ku soo noqdeen inay wax ka beertaan ay noqotay marka wax weyn oo la qabtay baa la oran karaa qof beertuu lahaa intay laagi ka qaadatay meel wax ka beertay waaye barakaco magaalo xamaal ka noqday ama ma garanaysaa dad kala galay say shalay noo sheegayeen in ma garanaysaa beeraha kale dadka la dariska ama qaraabada la yihiin inay la beeranayeen waxay sheegayeen marka laagahaasi oo ma garanaysaa xafiiska beeraha heer deegaan qaybta waaxda Dr. Dhiib annagoo la kaashanana la dhisay miisaaniyad lagu bixiyay weerar baa la xidhay qabaleega iyadna hilingaab la yidhaahdo hal laag baa la xidhay marka 4 laagood oo waaweyn oo beero waaweyn oo ilaa 500 oo hektar waxyeelo badan u geystay ayaa iyadna xidhxidh lagu sameeyay oo la xidhay degmada xilligan kulay tolo waxa lagu jira xir roobaadkii baa daay waxyaabihii ugu horeeyay hadhuurka iyo galeyda iyo khudaarta iyo waxyaabaha hadda la beeranayo hadda beeraleyda ku mashquulsan tahay iyo rogaalkii ma garanaysaa qamadiga oo kale sidii loo beer lahaa beeraha loogu soo carragedi lahaa loo rogi lahaa marka guud ahaan degmada uu barra shaqo ballaaran oo dhanka beeraha ayaa ka socota marka meeshani horta dhibaato badan bay nagu haysay aad iyo aad dhibaatadii aad iyo aad baan iga maanqanayo taasoo maanta wada arkaysaano dhibaatada ay nagu haysay wax ka mid ah daweydinka dhulkii arkaya horta intaa ku soo dhow oo dhan waxba laga beeran jirin sanadadan ka hor
markaa waxay keentay inay xoolo iyo dad iyo nafba in ay naga qaaday dee in yar u gaadhay marka aad iyo aad baa horta idinku anaqanay marka horeysa marka labaad dee dhulka wadinka arkayo iminka waxaa indhihiina aad ku arkaysaan waxaa biyihii kolka ku beydhan dhulkii nabaadkii oo dhulkii soo noolaanaya ya markaa dawladda sharafta leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana mahadsantihiin dhibaatadan in marshuucan in ka ballaaran loo sii sameeyo xitaa kuwa kale iminka waxaa jira marshuuc waxqabadkiisi waa kan dee ya dee dawladda waxaan ka codsanay in mar labaad iyo mar saddexaad ayna sidaan nagu daynay noo sii biiriso dee inta ay karto ya annaguna shacabkee dhulka waxaan ka qabsanaya aan noqono oon dawladda hadba sidii aan karno aan ula dadaaladii faa'iidooyinkan waxaa ka mid ah uu leeyahay dhulkiioo soo noolaanaya dhisiirka ka go-ay xoolihiioo ka cabaya dhulkiioo soo kabmaya oo noloshiisii iminka kow soo joogto oo wakaadee nabaadkii durba soo biqlay ma garanaysa xagga beeraha wallahi aad iyo aad faa'iido badan buu leeyahay faa'iido badan wuxuu leeyahay dhulkii biyuu ka beedhan ee oomanaha ahaayeen waxba ka soo bixi jiray wayniga arkaya maanta biqilkii iyo doogiiba oo kaa ka soo baxay faa'iido aad iyo aad baa xagga beeraha u ballaaran xagga bulshada xagga nolosha dhulka xaggii xoolihii iyo dadkii aan uga biqina inay naga qaadaan oy biyihii fadhiistaan nasteen oy naga baaheen ayna waxba naga qaaday maadaama waxqabadka lanoo qabtay dhulka markii hore barakac baa ku dhacay dhulku siduu ahaan jiray barakac ayuu ahaa jeexjeexiyaa markaa ka dilaacay ilaa 30 mitir kor u qooqan iminka dee sanadka waxqabashaa lanoo qabto aad wax lanoogu qabtay markaa dhulkii aan ka barakacnay aniga oo leh 8 qoodi magac ahaan laygu sheego 8daa qoodi waan ka barakacay 2 qoodi baa igu hadhay oo jeexii hortiisii 2 qoodi oo keliyana marin labadii baan caleentii xoolaha iyo hadhuurkii iyo xoolaha daaqoonkoogii aan ka reebay oo ka dhigi jiro intaasaan joogjoogi jiray dadka barkii dadka kale la qodan jiray dhulka oo dee halkiisii markuu ka tegay dadka kale wax la qodan jiray tio sidaas maanta dee dhakhtarnii baa noo yimid iyo dawladda nacfi badan baa markaa maanta lanoo qabtay dhulkii biyo xidh buu yahay ilaa gubyareeba lagaga soo aroori jiray ilaa laficiisa agagaarkeyga yaa laga soo aroori jiray sanadka biyo qabad webi baad mooddaa iminka yaa dhaamashii la xidhi jiray baad mooddaa dee oo webiya sida kale iminka dee faa'iidadii lanoo biiriyey waxay noo keentay iminka mashaariic baa laga beerayaa saacaddaa iminka mashaariic baa laga beerayaa faa'iidadu halkaas indhigoo noo marasaa iminkana in wax lanoogu beeriyo ayaan dawladda weydiisanaynaa dhulkani wuxuu ahaa dhul laga guuray dadkii laga guurayna ee guure barakiciina inuu dee soo noqdo hadda kadib haddii sidaa loogu sii wado oon laga caajisin iyuu u baahan yahay iyuu u fiican yahay waxa isbedelahe jira dee dhulkiioo hagaagay oo daaqii maaragtay daadkii halkaa ka rugmaday halkaa togwa jaalo kaga dhacay halkaa uu bannaankaa maray oo baabuurtaba liqayay maaragtay bankaas ayaana dilbuu iska socday awalla waddadaa unbuu marayay kolkaa uu baahay dhankaana uu ka baahay dhankaana uu ka baahay webigii niiq baabad moodaa kolkaas sidaa lafta u joogna sidii cawshii ma garan yaa dhallaan hababis beerihiina dee sanadkii hagaag buu maray daadkii si fiican buu maray oo dadkii barakaca guuray inay soo noqdaan iyaaba laga yaabaaba faa'iidada waxaa ka mid ah dee biyihiina wartaa looda ku dabaalanayso yaa halkani awal way dhaafayeen maantana waxaad moodaa dee biyo xidh kolkaa dee dhaan buuba noqdayba dee kolkaa in lanoo sii beeriyaa baan dooninaa anagu daawadayaal waxaa intaa inoogu dhan barnaamijkii gaarka ayaan ku soo qaadanaynay mashaariicda horumarneed ee laga fuliyey degmada awbarre 2 sano ee 11 iyo 12 waxaana barnaamijka idinla socodsiin anigoo nuur xuseena habeynta waa ridwaan maxamed khaliif duubistuna waa mukhtaar cabdi xuseen jabuuti annagoo isku duuban barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu